kale barnaamijka cawayska Washington ee toddobaadkanna waxaan idinku hayaa nin uu xaaskiisa ka furay tuug waa dhacdo qosol badan oo aan goordhow idiin soo wado waxa ka dhaca ma aha kuwa la soo koobi karo hase ahaatee qof kastaaba waxa uu ka sheekeeyaa tii isaga cajabisa saxardiid xaashi dhigaale oo ah dhegaysta ku xiran barnaamijkan cawayska Washington kuna nool magaalada Boorama ayaa jeclaystay inuu caawa la wadaago sheeko isaga ka yaabisay oo ku saabsan nin uu xaaskiisa ka furay tuug waa sheeko qosol iyo fariin culus bahuwan saxardiid ku soo dhawo barnaamijka cawayska Washington aad iyo aad baad mahadsantahay Caasha Cuud waan ku salaamaya adiga iyo bahda kale ee VOA Somali waad mahadsantahay waan dhawahay barnaamijka waad la soo xiriirtay dadka ku xiran barnaamijka waa tahay sheekooyinkiisa la socda iyo madadaalada aan ugu soo bandhigno dadweynaha maxaad jeclaan lahayd in barnaamijkan aad la wadaagto maanta barnaamijkan runtii anigu aad iyo aad baan ugu taxanahay inta badan internetkan ka socdaayo xagga Boorama inkastoo aysan lahayn FM xagga VOA-da qaybta Soomaaliga waxaan jeclaan lahaa inaan kala qayb qaato laba sheeko maad ah haye ku soo dhawow adiga mahadsan runtii sheekooyin fara badan waan hayaa waqtiga iriya kulay toole labadan sheeko ayaan idin wadaagi doonaa mid hore waxay tahay tuug telefoon xaday oo nin xaday haddana ninkii uu ka xaday xaaskiisa SMS ama fariinta gacanta looga diro kaga furay naagtiisii ama xaaskiisii hay xagee ka dhacda sheekadan kulay toole waxay kamid tahay sheekada loogu hadalhaynta badan yahay baraha bulshada beryahan dambe ana waxaan ka akhristay dhanka Facebooka marka sheekadaasaan jeclaystay inaan dhegeystayaasha la wadaago Caisha haye bal sheekada siday u dhacday bal si degan noogu yara faahfaahi sheekadan runtii horta marka hore ninkan xaaskiisa lagaga furi doono ee tuugu ka furi doonaay wuxuu ka shaqeynayay meel shirkad ah kadibna shirkadii uu ka shaqeynayay shirkadaha isgaarsiinta mid kamida ayaa telefonkiisiiba uu kaga dul tegay tuugtuna waad ogtahayo ma kala laha dee meel kasta way joogaan dunida ama shirkad ama bank ama meel kaste aad iyo aad deedna telefonkiibuu ka qaaday halkii oo uu la baxay kadib ninkii telefonkiisii u waayey wuu iska soo hoyday oo xaafaduu soo qabtay xaafadda markuu soo qabtay waxaa arkay xaaskiisii oo alaabtii xirxiranaysa oo shandadii dharkeedii ku urursatay haya maxaa ku dhacay markaasuu weydiiyey oo su-aashaad weydiisay mid lamid ah ayuu weydiiyey xaaskiisa wuxuu ku yidhi xageed qabanaysaa maxaa kugu dhacay waxay ku tiri sawdigay furay maxaa ii haday xaafadii hooyadii baan iska qabanayaa haye markaasay ugu jawaabay oo markaasuu yaabay oo ku yidhi telefonkaygiiba horta waa laga xaday bilistaje xaajiyo aan waca telefonkaygii marka sida lagu furayna wax kale maaha fariin qoraala looga soo diray telefonkiisii ilan telefonkiisiina waa laga xaday markaasuu u wacay ninkii tuugee telefonkii ka xaday oon simikaadhkii ka saarin ama simkii uu ku isticmaalayay kadib wuxuu ku yidhi war niyahow ma telefonkayga intaad iga xaday ayaad haddana xaaskayga iga furtay maxaad damacsan tahay haye markaasuu ku yidhi niyo gabadha xaaskaaga anigu way wereriso 30 jeer bay soo wacday buu yidhi inaan telefonkaaga kaa xadaba mushkilad kale igu noqotay buu mar waxay igu tiraahdaa joogtaa mar waxay igu tiraahdaa goor baad imanaysaa guriga yaad la joogtaa guriga hore u imow markaad guriga imanayso dukaanka alaab iga soo gad farmasiga soo mar madaxay xanuunaya caawa farmasiga hore u imo guriga waxaasay igu wererisay buu yidhi marka waa ku aamusuu yidhi kadibna waxaan isiri buu yidhi u naxariisan ninkan waxaas oo dhan ma xamili kare oo ka furnaagta markaasaan ku qoray buu yidhi SMS ama fariin xagga qoraalka ah waan ku furay haye marka sida wuxuu yidhi dhibku kaaga khafiifo marka adiga saan kuu sameynay buu yidhi aniga gabadhan iska fur sidaan ku noolaan kari maysa buu ku yidhi haye marka telefoonkaygina iisoo celima ku yiri mise telefoonkiina wuu la sii tegay ninkii telefonkii sidii buu kula tegay ninkii laakiin dhibka kaga sii darnayd in telefonkiisa laga qaado waxay ahayd in xaaskiisii laga furay weliba haye marka xaaskii ma qanciyey markii ugu dambeysay xaaskii waa u dejiyey si wanaagsan kadib aduu xaaladii waxay kusoo noqotay sideedii hore wanaagii kusoo noqotay laakiin waxay noqotay sheeko aad iyo aad ula yaab badan oo aad loo hadal hayo marka haddii telefoonka lagaa xado waa durbaba waa inaad ka gaartaa marka dadka ood fariimo u qortaa ood sheegtaa in telefonkaaga lagaa xaday si loo ogaado fariimaha imiga tuugtan cusub sheeko noocaasay lasoo baxeen marka digniin noocaasa
ku wajahan. aad iyo aad waa sheeko cajiib. waxaan filayaa dhegeystayaal fara badanna oo barnaamijkan dhegeysanaya saxardiidow inay sheekadan si weyn iyagana uga heli doonaan, fariinna ay u dirayso oo cashar wanaagsan